رئيسل وزراء ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Khadar ayaa daafray imtixaanka dugsiyada sare ee dalka oo maanta ka bilowday guud ahaan dalka marka laga reebo deegaanada Puntland iyo Somaliland. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in ay guul u rajeynayaan ardayda maanta imtixaanka u fadhiisatay isla markaasna ay aad loo adkeeyay sanadkan in uusan imtixaanka banaanka u bixin. Imtixaanka ayuu sidoo kale waxa uu sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenku in ammaankiisa aad loo ilaaliyay oo goobaha lagu qaadayo ay ciidamo booliis ah geeyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya si loo sugo ammaanka ardayda ka qayb galaysa imtixaanka midaysan. daahfurnay imtixaankii galaaska form 4 ama galaaska 12aad ee dugsiga sare iyadoo aynu la halgamayno ka hortaga iyo difaaca cudurka COVID-19 ee dunida ku faafay intii uu dilaacayna runtii jawaab iyo dadaal fara badan oo waafi ah ay xukuumaddu sameysay madaxweynuhu sameeyay ra'iisul wasaaruhu hormuudka ahaa meel fiican buu marayaa maanta inagoo tallaabooyinkii loo baahnaana fulinayna ayaa imtixaanadii aynu daahfurnay secondary schoolka galaaska afraad ardaydu ay qaadanaysaa imtixaanaadkoodii waxbarashaduna waa soconaysaa halganka wax kasta oo inaga hor yimaada ama amniga ha noqoto ama cudurkan dilaaga ee hadda dilaacay ha noqotee isna waynu wadaynaa waa arkaysaan in maanta 35,000 oo arday ku dhawaad ay imtixaanadii u fadhiisanayaan degmooyin fara badan iyo gobolada ay uga qayb galayaan si ay uga qayb qaataan imtixaanka shardiga ah oo secondary schoolka inuu ardayga ka gudbay iyo in kale uu sii gudbo heerarka kale ee waxbarashada ee jaamacadda waa marxaatiba ka tihiin amnigeenu inuu fidayo dawladnimadeenu inay fidayso waxbarashada inay tayadeedii sii kordhayso waxbarashada iskuulada waliba dawladdu ay maamushaa intii xukuumaddani jirtay ay ballaadheen waan ku dadaalaynaa wali halkii loo baahnaa waa ku soconnaa maynaan gaadhin ilaa aan gaadhno 100% ilmaha Soomaaliyeed in uu iskuulka aado oo uu wax barto aynu la dagaalano jahliga qoris akhris la'aanta aqoonta aynu dhisno oo aynu ballaadhino maskaxda ilmaha Soomaaliyeed aynu korino oo kabcino oo dhinaca wanaagsan ee wadaniyada ah nabadgelyada ku dhisan oo inuu nabad ku noolaado nabadna lagula noolaado ilmuhu ogol yahay aan maskaxda laga meedhin manhajka aynu rabno inaynu ka turjinaa ka weey mid nabad ku wada noolaansho ah mid dal jacayl ah mid wadaniyad jacayl ah mid isku xidhnaansho ah mid bini'aadminimada iyo islaamnimada iyo qofnimadaba wax taraya Soomaalinimada wax taraya marka halgankaas aynu ku jirnaa maanta guul bay noo tahay sanadkii afraad inaan daahfurno imtixaanka oo 35,000 oo arday ku dhawaad maanta ay u fadhiisanayaan Soomaaliya ha noolaataan leeyahay ha israacdo ha wada jirto waa mahadsantihiin imtixaanka midaysan ayaa waxa sanadkan u fariistay in ka badan 34,000 oo arday waxaana lagu qaadayaa 122 xarumood. Maxamed Abduqaadir Silva, Galmudug TV.